maanta waxaan daah furnay 3 mashruuc oo waaweyn oo loogu talagalay in wax looga qabto waxa la dhahaa halka waara oo ah aafooyinka ay keeneen barakacyaashan iyo dadka qaxootinimada ka soo noqday iyo dadka mataqaanaa guryahoodii ka soo qaxay oo noloshoodii in la hormariyo u baahan 3 mashruuc oo mashruuc kamid la dhaho Haldoon midka kalena waxa la dhahaa Nigaad iyo mid la dhahaa Sebo oo saddexdaba loogu talagalay mid 300 ilaa 400 family oo gabdhaha waliba Soomaaliyeed maamooyinka ay hogaaminayaan in lagu empower gareeyo shaqo abuur loogu suubiyo nolosha ay guriga ay ku maareyn lahaayeen si ay ugu helaan ayaa loogu talagalay 3 sano iyo 8 bil ayaa loogu talagalay mashruucaas inuu socdo mashruuc kale oo asagana Haldoon la dhaha oo arrimaha maxaan ku dhahaa durable solution-ka ama xalka waara la asagana qayb ka ah oo ilaa iyo 500 oo kun oo qofood la raba inay saameyn ku yeelato noloshooda wax loogu bedelo oo ay kari karaan in mataqaanaa kabista noloshooda kor loogu qaada waxay dhahaan livelihood-ka oo ay lagu daryeelayo noloshooda iyo caafimaadkooda iyo waxbarashadooda iyo sidoo kale iyo mashruuc kale oo asagana Nagaad la dhaho oo laga fulinayo South West State halkan waxaa nala jooga wasiirkii South West wasaaradda qorsheynta hogaaminaya wasiir Xuseen Badne iyo agaasimihiisii guud iyo wasiirka madaxtooyada Dr. Maxamed Ibrahim intaba ayagana barnaamijkaas wax laga launch garay magaalooyinka la dhaha Afgooye meesha la dhaho Mareerey iyo tuulooyinka areas ku yaala asna lagu horumarin doonaa mashruucaas asigana waa mashruuc dad badan noloshooda gaari doono in wax lagu bedelo saddexdaas mashruucan maanta halkan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo laga launch gareeyay ay ka launch gareeyaan waxaa sidoo kale martino ahaa nala joogay hay'adihii maalgelinayay mashaariicdan EU-da amaba midowga Yurub iyo dalka Germany qaybta u qaabilsan madaxa arrimaha horumarka ayaa ayagana joogay iyo madax kale oo ka socotay hay'adaha mashaariicdaas nala fulinayo IOM-ka iyo international NGOs kale iyo kuwa UN-ka mashaariicdan fulina marka barnaamijkaas si fiican oo meeshan ugu dhacay si guul ugu dhacay waxaana rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed ee aafadan soo noqnoqotay in mataqaanaa ay ka faa'iidi doonaan waxayna qayb ka tahay mashaariicda tirada badnaa ee wasaaradda qorsheynta dawladda Soomaaliya ay markastaba ay fulin jirtay si laba ujeedo loo gaaro waa mid dhimista faqriga ama saboolnimada Soomaaliya ee dadka aad iyo aad u tabaalaysan ay ku jiraan iyo horumarka dhaqaalaha noloshooda in la gaarsiyo oo dhaqaale ahaan la hormariyo arrintaas ay ujeedo u tahay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasaaradda qorsheynta Jubbaland iyo wasaaradda qorsheynta South West oo barnaamijka nagala shaqeynayay oo qayb ka ahaa in maanta si guul ah loo launch gareeyo kama dambaysan dadkii mashruucan dhaqan maalgeliyay European Union-ka amaba midowga Yurub iyo Germany-na waa u mahadcelinayna insha Allah adinkana aad u mahadsantiin